السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وشافي official aad daawanaysaan kusoo dhawaada asxaabtayda wixii nagu cusub waxaan soo dhaweynaa gacmo furan baan kusoo dhaweynaa wixii hore nala joogay intii hore dadka nala joogtay waxaan leenahay sidii aad noola joogteen noola jooga waxbaan hadalkeeda ku dheereen caawa waxaan rabay inaan ka hadalo Niciima abwaan qorane oo aad baraha bulshada u haysatay tan iyo shalay maanta idoraadba maxay tahay Niciima abwaan qorane maxay qaban jirtay xafiiska madaxtooyada ama madaxweynaha maxay ka qaban jirtay shaqadeedu maxay ahayd bal haddaba marka waraysigii laga qaaday markii la waraystay maadaama ay hadalhaynteedii badatay waxa laga qaaday waraysiga laga qaaday bal horta aan dhageysano iyo actin xafiiska masha Allah marka waxaad ahayd qof madaxtooyada si official ah shaqaale uga kow waxaa baryahan dambe soo cusboonaaday weerar adiga kugu aadan weerarkaas oo aan aragnay hadda baryahan stageyo kala duwan maraya ama heerar kala duwan maxaa is leedahay waa loo sababayn karaa hortu sidaad la socotaanba muddooyinkii ugu dambeeyey xiisad siyaasadeed oo aad u kacsan ba dalka ka jirtay dalkuna wuxuu u eegyahay hadeer mid xisbiya u jiitay xisbidii ugu waaweyn waddanka isku hayay nabadii nolol iyo xisbigan tiimdama jadiidka ay leeyihiin bay ahaayeen waxaan u malaynayaa dagaalkaygu bilow ilaa dhammaad wuxuu ku saabsanaa inaan anigu ahaa xubin ka tirsan taabacsan siyaasad ahaan ama ay ka qaban jirtay hawl dowladda u gaar ah laakiin xafiiskii markii la baaray waxay noqotay 5,000 oo dhalinyaro ah oo uu qortay farmaajo 5,000 oo ay ahaayeen oo u qortay marka horeba shaqadoodu ahayd ba inay ka ololeeyaan baraha bulshada oo taabacsan farmaajo oo markasta wanaagiisa sheega hadalhayntiisu u badato dadkaas wax kale ma qaban jirin social mediahaasi waxay u qaabilsanaayeen in ay ka buunbuuniyaan farmaajo ama wuxuu yahay sheegaan ama waxa ku daraan adu laakiin xafiis saxa oo dadka bulshada ama bulshada Soomaaliyeed wuxuu qabtaa ma ahayn laakiin wuxuu ahaa xafiis wuxuu qabta farmaajo iyo sidoo kusii joog lahaa meeshan iyo wanaagiisa lagala dhaadhiciyo dadka inuu farmaajo yahay madaxweyne ugu horeeyay ee qortay dhalinyaro badan shaqo abuur sameeyay dhalinyartana ay ka mid tahay kuwii markaa u qortay baan kusii socono markaad tiraahdo dagaalku xaguu kaaga yimiyey sidaad ku xaqiijin kartaa qofka kula doodaya macaaridka xilligaa ahaa haddana maxaafidka ah wuxuu kula doodayay sidee baad u taageeri kartaa dowladda hadda jirta sidee baad farmaajo nooga raaci kartaa sidii farmaajo inuu yahay qof meel joogo xaafadiisa fadhiya oo malmahayn madaxweyne qaran marka taasi waxay cadeynaysay weerarka ugu badan inuu ahaa oo dowladda xilligaa jirtay oo aanu ka mid ahayn taageerayaasheedii islamarkaana aanu ka mid ahayn dadkii la shaqaynayay ee qaybka ahaa waxaan aragnay facebookaagii oo lagu qoray remembering qof dhintay mana aha qofkii koowaad ilaa qofkii saddexaad ba ahayd baan u malayaa soo far dadka siyaasaddii dowladdii hore taageerayaasha oo ahaa lala beegsaday arrintaa ah dhimasho in loo rikoor gareeyo ama loo diiwaan geliyo process bay qaadanaysaa kolley waa lasoo furi doonaa pageka haddaan la furina kuwo kalaa la furan doonaa macno male baraha bulshadu waa iska badweyn xor ah oo qofku horta pageka la xidho ama Facebook la xidho waxsaa u sii weyn maaha dowlad kastaana waxay leedahay dad dhalinyaro ugu jirta social mediaha ama taageersan ama qof yani shaqaalaba u ahba dowladda cusub ee markaa la doortay taasa waxay keenaysaa isku dhacyo in laga saaro hawada laga saaro kuwii hore ee dowladda hore taageersanaa si aan buunbuunintoodii meesha usii joogin oo aanay meesha isku dhaco iman amaba aanay bada iyagu uga hadal badan ba si loo yiraahdo
يعني madaxweynihii hore wax qabad badnaa kan waa laga wax qabad badan yahay anagu waxaasaanu qabanay anagu saasaanu qabanay haddii lagaaga badan yahay baraha bulshada yani waa laga guul badanaya sababta darteed baa keentay dhalinyartii cusbayd ee madaxweynahan imika u wadatay in ay ka saarto hawada dhalinyartii hore inkasta qofkii uu au yahay qofku magacuuna uu wato qofku sidii uu qof caana u yahay oo bulshada dhexdeeda uu caan ugu yahay page kasta oo samaystaana uu noqonayo page taabagala oo shaqeeya oo dadkuna sidii ugu soo xidhmo haddana dhimashada in lagu qoro qofku inuu dhintay waynu soo arkaynay imse abwaan imse fanaan imse maxay hayday sheekh imse dadka bulshada soomaalida oo dhan ka mid ah ayaynu arkaynay oo laga soo sheegayay in ay dhinteen in ay waqtigaas dhimashadooda ahayd in sababtaa u dhinteen taasina wax weyn ma aha laakiin muhiimaddu waxay tahay haddiiba qofkanu uu soomaali ahaa sharci soomaaliyana uu sitay turkina uu joogay waa maxay sababta loogala noqday sharcigiisii waxa ku cad ama wareysigan waxa ku cad in aan laga qaadin sharcigii dhalashada ahaa ee ay haysatay balse laga qaaday sharcigii diblomaasiga ah ee ay sidatay waayo diblomaasiyad ma aysan ahayn waxay ahayd dhalinyarta ku ololeysa baraha bulshada maadaama dowladdii marka ay u ololeyn jirteena ay meesha ka baxday dowladdana wax shaqo aanay u hayn dowladduna baadhay oo aragtay inaanay wax shaqo ah ahayn qofku diblomaasi muxuu kusii ahaanaya taas wey muhiimad bal laakiin ay hadalka ku xijireen aynu kusii soconno oo malbahayn madaxweyne qaran marka taas waxay cadeynaysay weerarka ugu badan inuu ahaa oo dowladda xilligaa jirtay oo aanu ka mid ahayn taageerayaasheedii isla markaana aanu ka mid ahayn dadkii la shaqaynayay ee qaybka ahaa waxaan aragnay facebookaagii oo lagu qoray remembering qof dhintay mana aha qofka koowaad ilaa qofka saddexaad ba ahayd baan u malaya soo far dadka siyaasaddii dowladdii hore taageerayaasha oo ahaa lala beegsaday arrintaa ah dhimasho in loo record gareeyo ama loo diiwaan geliyo process bay qaadanaysaa kolley waa lasoo furi doonaa pageka haddaan la furina kuwo kalaa la furan doonaa macno male baraha bulshadu waa iska badweyn xor ah oo qofku haddii page laga xiro mid kale furan karaa dadku way helayaan qofka hadday rabaan lagamana hor istaagi karo qof lama caburin karo baraha bulshada lagama caburin karo sidii mainstream media looga caburin jiray loogama caburin karo waa ilaahay mahadis waxaa kaa horreeyey cali yare iyo nin la yiraahdo siyaasi cali daacuun adiguna waa ku xigtay qofka saddexaad ba ahayd soo far intaan arkay maxaa is leedahay waad galabsateen oo aad ka siman tihiin yaase arrintaas kambeynka ka dambeeyaad isleedahay hortu inta aanan waxa aanu galabsanay ama aanu aanaynayno in nala caburiyo aanan u gelin waxaan doonaya inaan idhaahdo waa runteed hortay in dadku kala duwanaanshaha mucaaradku inuu yahay in uu mucaaradku uu soxo mar kasta xukuumadda khaladaadka ka dhaca inuu soxo waa sax taas laakiin sababta iyada looga qaaday baasaboorkii ay haysatay ee ahaa diblomaasiga ahaa ma ahayn inay mucaarad ahayd mucaaradki weli sidii buu jiraa mucaaradki weli sidii buu socdaa mucaaradku waa taagan yahay laakiin iyada iyo dhalinyartii lamidka ahayd ee aan haysan wax shaqo ah xafiis ay ka shaqeeyaan ama wax ay soo qabteen meesha aanay ka muuqan ayaa waxaa laga qaaday diblomaasinimadii baasaboorka diblomaasiga ay haysteen sababta kale ee meesha jirta waxay tahay maxay u noqotay qof kasta oo dowladdii hore ka tirsanaa inuu turkiga yimaado dad badan baad arkaysaa oo dhalinyaro ah oo turkiga aada ugu badan sababtaas waxay dadkaas waxa dadkii dowladdii hore la shaqayn jiray qof kasta waxaa la siin jiray shaqo social media uu ka qabto lacagtiisa uu qaadan jiray turki baana la keeni jiray si uu ugu noolaado wixii kale ee ku hadhayna imika turki bay joogaan markaa sababtaasaa keentay dadka yaan la waalin yaan la jar habaabin iyo wax kale iyo qabiilo afka loo gelin taas weeye sababta saxda ee gabadhan looga qaaday sharciga ayna iyada imika cabashada usoo jeedinaysa shaqadeedina waa laga qaaday sharciga waa laga qaaday markaa dhammaan asxaabteeda intaynu ku kulmi doono muuqaalkan muuqaal lamid ah
waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo. Subscribe-ka, like-ta, share-ta, comment